taas inta hadda aan ka baxo dawladda waxaan arki jiray ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo loogu magac daro qaybaha qayb walba marka magaceeda la sheeg magac loo bixinayo waxa lagu saleyn jiray wadanka dhaqankiisa waxaan ka soo qaadayaa qaybta 26aad waxa loogu saleeyay 26 Juun xurnimadii waqooyi 60aad xurnimadii Soomaaliya 22aad 22 kacanka hadda waxa soo shacbaxay oo aan ognahay marka la yiraahdo gorgor kalimatul arabi waa fahd nin reebo xasana in dalkan waxba ku lahayn inuu isku magacaabay ciidamadii taasoo qalad ay tahay macnaheedu waxa waaye gorgor arabi markii loo fasiro waa fahd qaamuuska rabtaan ka fiirsada say ku dhacday marka inuu magacii ciidamada qaato fahd oo ciidan isku magacaabo asoo shakhsi ah taas ummadda Soomaaliyeed ay u taallaa waxna waa ka qabanaynaa ma ku dhaafayno wixii dalka burburinayo kamid yahay dadka burburinayo kamid yahay mana ku dhaafayno intaas waxa ay dheer waxa waaye waxaan salaamayaa Soomaali wax alla wixii xaq uu ka maqan yahay oo xaq dir ah inta xaq ka maqan yahay oo Soomaali waa badan tahay baydhaba kamida kismaayaa kamida hiirana kamida galmudug kamida buntland kamida gada kamida waxa kamida waqooyi waxa kamida banaadir intaasoo gobol oo Soomaali ay degan tahay xuquuqdoodii ma haystaan waa inay helaan xuquuqdooda cidda hor taaganna waa inay kor wareegtaa madaxweynaha waxaan u sheegayaa u muuqon caadil ah ka leexo dadka xaqooda wixii xaq darana dadka ka hor wareeji intaas haddii laga waayo adaa la iska ka hor wareejinaya ma nala joogi doontid waxaad ku naalootaa mar walba inaad tahay nin caadil ah nin xaqa jecel laakiin nooma muuqato noo muuji cadaalad xaq iyo dadnimo ka leexo waxyaabaha foosha xun oo lagugu jiidayo cidda kugu jiidaysana Soomaaliya oo dhan waa taqaanaa af wax laga sheego faa'iido ma laha dalka ha u horseedin farmaajo dagaal dalka waxa uu horseedaa nabadda ayaa nolol leh haddii arrintu kula tahay kursigaaga haddaa weysid inay ummadda isdisho